السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب دمان وإن سلامني مقال كامجنا فتاك وكسبتاي سبسكرايب وصار مقال كان الله مقعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب يوتيوب كما قاعوا كبدل رنا شعيب برو ميديا وكبدلنا وحن قرنا إلياس مدة ذاك البرنامج شوين في عن أيان إنستورنا مقالة الله صعدة إن شاء الله وحيالوين بدنا إن أفعى أيان إنستورنا جنالك لا صعدة إلياس أيان قرنا barnaamijyadan waa bedel rana insha Allah marka muuqaalka ku soo dhawaada laba sheeko oo aad u macaan ku soo dhawaada asxaabta waxayna haynaa laba sheeko oo aad u macaan sheekadan waxay ugu dhacday mar uu dhalanayo walaalkay runtii aniga walaashay ayaa guriga maalinkaasi joognay hooyaday ayaa markaas xanuunsatay uur ayana lahayd runtii tamcaan ayay noqotay aabahay iyo daraska ayaa waday waxayna u wadeen dhankaas iyo farmashiga runtii maalinkaas hooyaday aad ayaa loo hayay anigana waa fahmi weynay runtii aniga waan nooga tagay guriga anigana aad ayaan u baqaayay telefishinka ayaan daaranay saacadana waxay ahayd xilli saqdhaxa 8 saac iyo bar habeenimo ayay ahayd runtii walaashay way seexatay anigana aad ayaan markaasi telefishinka ugu socday walaashay runtii cabaar markay jiifto anigana telefishinka aan daawanayo oo filim macaan oo cartoon ay socdo ayaa runtii aad markaas waxaan maqlay shanqar guriga banaankiisa ka yeerayso saacadana 8 saac iyo bar ayay ahayd runtii anigoo markaas yaaban oo telefishinka daawanayay ayaa hal mar korontada tagtay dhanka muraayada ayaan waxaan ka maqlay shanqar ka yeerayso oo qof gacantiisa muraayada soo gargaraacayo haddaba meesha fiiriyay waxaan arkay gacan meesha soo gargaraacayso runtii aniga aad ayaan u baqay markaan arkay gacanta qofka madaxiisina ma arkeenin waa fikir su'aal ayaan isweydiiyay waxaan dhahay iyo noqon kara qofkan kugu ciyaarayo arintan marunba mideeda kale aniga aad ayaan markaas u yaraa subaxii waxaa imaaday waalidiinteedii oo wado walaalkay ayaan ugu soo kordhay runtii hooyaday aabahay wuxuu ku yiri orad cuniga soo fiiri oo soo ogow aniga halkan aan joogayaa hooyadayna waa ka aqbashay maalinkaasi ani waan maqneen runtii aabahay asoo maalinkaas daawanaya telefishinka oo filim macaan u socdo ayaa waxaa dhacday leerka inuu tago sida habeenkii lagu sameyn jiray shanqar ayuu markaas ka maqlay dhanka daaqada muraayada kadib wuxuu arkay laba gacmood oo meesha la soo saaray runtii aabahay aad ayuu u naxay gadaal ayuuna ku dhacay macnaha gambarku ka dhacay wuxuu arkay qof madaxiisa soo taagayo oo horay uu arkin sheekada koowaad halkaas ayay ku dhamaatay ku soo dhawaada asxaabta sheekada labaad runtii hotel ayaan ka shaqeyn jiray aniga sanadkayga wuxuu ahaa 19 sano maalinkaas waxaan rabnay inaan ku guuleysano dhul aad u weyn oo aan rabnay inaan ka dhisno dabaqyo runtii maalinkaas wax kasta ayaan meeshaas aan ka dalbadnay cunto wax kasto barnaamijka macnaha waxaan saxeynay dhulka saa u dhisi lahayn markaas caajis ayaan inay qabtay runtii waxaan jeclaysnay in dhulka soo fiirino meesha ku yaalo maalinkaas dhamaanteen wax meesha ka shaqeynayay inaan baxna ayaa rabnay gaariyaasha ayaan ugu filnaan waayay saaxiibka ayaa wuxuu yiri gaariyaal badan ayaan qaadanaynaa saan u soo fiirino dhulkaas saaxiibteyda waxay dhahday arintaas waa arin fiican oo kugu raacsanahay kadib gaariyaal badan ayaan markaas qaadanay saan u aadno goobta dalxiiska ahayd aniga waxaan furtay laptopka saan arinta u galo kadibna saaxiibkay ayaa markaas waday gaariga runtii anigana maalinkaas waxaan la passwordka ii sheegay computerka kadibna uu ii sheegay runtii goobta dalxiiska ayaa soo aadnay goobta dalxiiska markaan imaanay aad ayaan u faraxsaneen meesha jabi macaan ayay lahayd meesha markaan imaanay runtii baakinka ayaan markaasi baabuurtaan istaajisanay goobtana waxaa ka dhaweed meel cunto iyo wax lagu gadgado anakana aad ayaan maalinkaas u gaajeysneen runtii cunto badan ayaan dalbanay gaarigana shidaal ayaan nagu shubaayay 3 gaari ayaan meeshaas uga tagnay anagana waxaan aadnay dhanka dalxiiska macnaha dhanka beerta kadib waxaan arkay gaarigii oo markaasi muraayada laga jibiyay gaarigii kale oo meesha laga qaatay iyo gaariga kale oo muraayada laga jibiyay oo asaga dhan burburay kadib booliska ayaan wacay saan ugu sheego arinta dhacday booliska goobta way imaadeen
arintiina runtii kadis ayay nagu noqotay meeshana wax joogay oo bini'aadan kale ma jirin door ayay ahayd booliska arinta jirta ayaan u sheegay aniga halkan ayaan joogaan dhahay waxaan arkay gaarigii oo wixii dhan oo la kala jabiyay laptopkeygina runtii wuu laabnaa hadduu wax duubi lahaa aniga meesha ayaa fadhiisanay booliskana wax way waayeen war kadib boolisku waxay noo sheegeen meeshan iskaga dhaqaajiyo aniga ayaan la soo hadli doono kadib hal gaari ayaan soo raacnay meeshaas waa kasoo tagnay runtii aad ayaan maalinkaas u walwalsanaa dhammaanteen waan soo baxnay sida u dhaneen kadib runtii habeen ayay nagu noqotay saaxiibkay ayaa wuxuu wacay aabihiis ayuu markaas wuxuu u sheegay arinta jirto inaan soo daahayna ayuu u sheegay maalinkaas runtii dhul buuro ayaa maraynay oo aad u cidleysan waxaan aragnay gaari meel ku dhacay oo qof bini'aadan macnaha uu la joogin runtii arinta kadis ayay nagu noqotay waa kasoo degnay booliska ayaan u sheegnay gaarigaba wuxuu noqday inuu gaarigeena ahaa runtii aad ayaan markaas u naxnay asxaabta dhammaan way baqeen maalinkaas anigana aad ayaan u walwalsanaa kadib waxaan aragnay arin la yaab leh muraayadii la jabiyay gaarigii oo burbursan arin naxdin leh ayaa markaas kadib arkay waxaan arkay gaariga oo markaas dhiig leh gambaridiisi anigana markaas zaid ayaan u cabsaday iyo muraayadihii saacada oo la burburiyay runtii aniga waa fikiray qof kastaan yeeli karaya waaya ayaa istahay balse booliska wax kasta oo dhacay waan u sheegay iyo sida baabuurka macnaha meesha uga soo tagnay kadib aniga waa fikiray runtii waxay noqotay arintan meeshan inuu joogo bahal ama horror sheekada maalinka salkaas ay ku dhamaatay saas ayaan ku badbaadnay muuqaalka channelka hadda ku cusub tahay subscribe noo saar haddaad ka heshay muuqaalkana like ugu dhiirigeli asxaabta waa mahadsantihiin dhammaantiin waan in salaamayaa insha Allah channelkana magaca ayaa ka bedeli doona like gambaleelka sheekooyin kalena waa in soo gudbin doonaa barnaamij kale like-gana waa noo muhiim markasta oo nala socotina waa inaa muuqaalka share dhahdaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.